ninkaa waxaa la yidhaahdaa magaciisa hore dhamaystiran waxaa la yidhahdaa Caasim Muniir Axmed Shaah baa la yidhaahdaa. Aabihii waxaa la dhahaa Saruur Muniir baa la dhahaa. waxaa la yidhahdaa ninkan usuushiisa waxay kasoo jeedaa Indiya kasoo jeedaa oo waxaan maadaama haddii la yidhaha Indiya kasoo jeedaa waa dadkii muhaajiriinta ama kasoo tegay markii muslimiinta iyo dagaalka Pakistan nadariyada labada dowladood nadariyada labada ummadood wuxuu rumaysan yahay horta nadariyo ama waxaa jira aragti ah laba ummadood inaan nahay annaga haddaan nahay macnaa ma nihin hal qowmiyad ma nihin laakiin waxaan nahay laba qowmiyadood ama laba ummadood baan nahay muslim iyo hindus baan kala nahay laba aragtidaas waa aragti Pakistan lagu dhisay oo la yiraahdo niman badan oo mufakiriin oo Pakistan oo Allaah maxaa aqbal uu kamid yahay oo kale to ninkan mufakirka weynaayo gabyagana ahaa ayaa aaminsanaa marka Caasim Muniir waa nin markii asaga laga wuxuu ku barbaaray horta ama ku dhashay magaalada la Rawalpindi magaalada Rawalpindi waa magaalo ku degan Islaamabad bay ku degan tahay gobolka Punjab ay ka tirsan tahay Punjab gobolka la yiraahdo marka ilaa India buu dheersan yahay waa gobolada ugu weyn ama ugu weyn gobol waxaan ka wadaa gobol caadi kama wado waa maamul gobolada weyn maamul goboleedka marka maamul goboleedka caasimadda ku dhex taala ayagu India iyo Pakistan labaduba waxay u dhisan yihiin qaab ah federaal marka Punjab waa gobol ama maamul goboleed kamid ah waxa way Pakistan kamid ah Indiana qayb buu ku siiyay ruuxadiisa oo Punjab India baa jira marka gobolkan waa gobolka ugu dadka badan gobolka ugu dhashay oo waxa la yiraahdaa ilaa 100 milyan Pakistan markii 250 milyan tahay 100 milyan waxay ku nooshahay meesha la yiraahdo gobolkaas ku nooshahay ama ku dhawaad gobolka marka halkaas ku dhashay ninkaasi ku barbaaray aabihiis madrasad diiniya ayuu macalinka ahaa oo waa nin diinta lagu soo tarbiyay oo quraanka markii la soo baray tajwiidka la baray quraanka la baray ahkaamta la baray waxa la baray diinta la baray ninkaas asaga ah waxa waxyaabo la yaab kale wuxuu dhashay 6 bishii 6 1966 buu dhashay 6 bishii 6 waa wada 6 wixii soo dhashay marka 6 bishii 6 1966 buu dhashay waa nin khalfiyadiisu diini tahay halkaasna ka soo jeeda marka laba arrimood oo India aad ma taqaana ugu diraysa ayuu leeyahay waa wadaad marka hore oo wadaad baa dhalay Pakistaanadu anaga dhaqan ahaan waxay kaga duwan yahay waxa kamid ah qofku aabihiis wuxuu yahay buu noqdaa qofku aad misalna aabihii macallin yahay macallin buu noqon aabihii hadduu wadaad yahay wadaad buu noqoni hatta hadduu macnaa nolosha field kale ama qayb kale ka galo qaybtaasu aabihii wuxuu ahaa buu siiyay wali waxa ku dareemin karaa ninkaasi asagoo quraanka markuu bartay buu wuxuu tagay wuxuu aaday markaas uu ciidan galay qaacidadaas garanaysa ama la yiraahdo kaku ayaa la yiraahdo baan marinay magaceedu ahaa ayuu ku soo tababartay markuu 20 meelahaas jiray 86 ayuu galay ciidanka galay waa la qaatay ciidanka markii la galayo Pakistan mu'assasada ugu khatarsan ama ugu wanaagsan qof Pakistani ka shaqeeyo markii Pakistan la joogo waa ciidanka ayagu waxay siiyaan taqdiir weyn bay siiyaan ama waxa weeye boos weyn bay ka joogtaa Pakistan markii la joogto ciidanka maadaama uu waxa kaliya difaacaya dalka oo dal kale oo nuclear haysta oo cadawaya ku ah oo jiritaankooda ka soo horjeedana uu bahalka yahay baa waxa la siiyaa ciidanka waxa la siiyaa ahmiyadda ugu weyn baa la siiyaa ciidanka lacagta ugu badan oo ku baxda oo hadda miisaaniyadda markii Pakistan markii la fiiriyo waxa 60% wax ku dhow ama ka badan ayaa ku baxaysa ciidan ku baxaysa sababtana waxa weeye xoogga waxay saaraan ciidanka inuu wax yeesho nolol fiican ku noolaado isbitaal fiican leeyahay muassasaadka ugu waaweyn oo jaamacaadka iyo waxa la halmaala iyaga leh adigu inaan ciidan ku socon ninkaas waxa la yiraahdaa marka ninkaas xaafid waxa la Caasim Muniir baa la yiraahdaa asaas u barbaaray markuu halka barbaarkiisii hore qaabka u barbaaray uu tababar buu galay waxyaabaha la siiyo asagoo horaankiisa la siiyo waxa kamid ah bilad la yiraahdo sayf sharaf ama sayfta sharafta ayaa la siiyay waxa lagu siiyay tamayuskiisa ama waxa loo yaqaan ma taqaana inuu saaxiibadii ka dhex muuqday si gaar ah uga dhex muuqday ayaa loo siiyay kadibna uu ku sii socday tababaradii iyo waxyaabaha la halmaala wuxuu ku bartay meelo badan wuxuu ku bartay marka ninkaasi oo wuxuu wataa tababaro wadamo aad u badan ninkani hal kaliya Pakistan kaliya maaha wuxuu ku soo tababartay Japanka
qaacida aan u malaynaya inay magaceedu ahaa Fuki ama Uha ayuu ku soo tababartay Malaysia ku soo tababartay wuxuu ku tababartay madrasa ama jaamacad la yiraahdo jaamacad alquwaat almusalaha albakistaniya oo Islamabad ku taala buu ku tababartay waxa la halka masterti buu ka qaatay oo uu ku qaatay wax taqaana hogaaminta iyo waxyaabaha la halmaala uu ku qaatay meelo badan uu ka shaqeeyay marka kadib waxyaabihiisa meelo ugu badan oo ka shaqeeyay waxa kamid ahaa waa meesha ku leeyahay wadaad baa dhalay wadaad buu sii noqday hadda markii ciidan waxa loo diray Sacuudiga iyo waxa ka dhaxaya Pakistan waxa ka dhaxaya iskaashi military baa ka dhaxaya marka waxa loo diray Sacuudiga markii loo diray wuxuu sameeyay quraanka si xafiday intii ka dhinayd ama wixii uu hore mataqaana u tabeeyay ayuu si xafiday quraankii xaafid quraan baa ku noqday marka Pakistantu ninka laba wax oo ay ku tixgeliyaan ninkaas u leeyahay Pakistan markii Pakistan la joogo horta Pakistantu qofka quraanka xafida waxay u yaqaan xaafid saab u yaqaan xaafid saab macnaha waa fadhiga loo kacay xaafid saab baa leeyahay xaafid saab macnaha waxa weeyadi xaafidka weyn amal weey ama sayidka xaafidka weey baa leeyahay marka tixgelin qof ku helay halkaas haduu quraanka xaafid ku yahay oo dadka Pakistan tahay markii la fiiriyo qaabkay ayagu traditional ama dhaqan ahaan u tarbiyaysan yihiin waa qaab ay diinta aad u weyniyaan dadkaasi مثلا لو كانت هذا يقول دح جوجا Soomaalida dhexda marar bay ka dhacdaa hadda diinta caydid ama nabiga wax ka sheegtid ama waxaas ayuu aan maxkamad u geyn ama cid ma taqaana wax lagu weydiin meesha laga yaabo lagu gubo ama dhibaato lagu saar marka xaafid saab markuu yahay asagu taqdiir baa ku helay sidoo kale wuxuu taqdiir ku helaya inuu ciidan yahay oo qofkii ma taqaana ciidan u tababaran yahay marka ninkaas markii laga tago intaas wuxuu soo noqday hogaamiyaha faylaqa koowaad ciidanku soo noqday faylaq ama waxa la dhihin karaa gas meel la dhihin karaa oo soo noqday wuxuu soo noqday sidoo kale gaska soddonaad buu soo noqday sirdoonka ciidanka ayuu soo noqday oo Pakistan sirdoonada ugu xoog badan kamid ah sirdoonka guudna soo noqday marka laba sirdoon bay leeyihiin ISI iyo MI baan marnaa kala looha midna waa mid guud midna waa mid military ah marka labadaba uu soo noqday isagu mid buu wax yar hayay sirdoonka marka Pakistan ka ugu awooda badan marar badan oo adduunka wuxuu galay kaalinta koowaad buu galay waxyaabo ku galo waxa kamid ah baa la yiraahdaa inuu helidda warka ayuu number 1 ku galaa macnaha sabaarada kale waxa laga yaabaa hadii wax badan ku qaadato asagoo waxa laga yaabaa warka soo adduunka salaysan waxa laga yaabaa inuu ku helo waqti yar ku helo oo misalna oo kaleeto uu ku helo 30 daqiiqo inuu ku helo laga dhicin kara ama wax ka sii yarba uu ku helo wararka adduunka meesha iskhabaarada kale ama adduunka kale ku qaadato waxay ku qaadanaysaa waqti badan bay ku qaadanaysaa marka sirdoonka aad u adag weeye runtii hay'ad badan iyo meelo badanna waxa u adeega oo siyaabo badan bay u adeegsadaan sirdoonka marka ninka sirdoonka buu madax ka soo noqday wuxuu ka soo noqday horta meeshu ka baxay markii hore uu ka baxay qaacid uu ka baxay Mangala baa la yiraahdaa waxa ayadana ka baxay ninkii liidiya xaq leh jiray oo loo tiiriyo inuu nuclear ka waagi asoo sameeyay qaacid uu ka baxay meeshu ka baxay weeye waxa la yiraahdaa saldhigu ka baxay ama ku tababartay waa soo ka baxay waana ninka labaad baa la yiri oo ciidanka isla qaacida ka soo baxay oo ciidanka hadana gudoomiye ka noqday waa ninkii labaad ninkani waa qofkii 17aad oo ciidanka dhan guud ahaan loo magacaabo 22 ayaa loo doortay Shahbaz Sharif risaala hadda kamid hadda jooga ayaa u magacaabay marka ninka qaabkaas ayuu u soo tababartay ama ma taqaana backgroundkiisa ama taariikhdiisa saas ayay ahayd waa nin ku adag marka waxa loo yaqaano Hindiya ku adag inta badan ninka waxa lagu magacaabaa inuu ka shaqeeyo ama jecel yahay inuu san smoojin oo ka shaqeeyo khalfalka waaliis ka shaqeeyo laakiin dagaalkii hadda wuxuu ku xasbay inuu soo baxo wuxuu ka dul khudbeeyay dabaabad ama waxa la taangi buu ka dul khudbeeyay taangigaas ayuu wuxuu asagoo soo delishanay ayad quraan kamida
oo ay ka mid tahay waxa weeye inama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa yas'auna fil ardi yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqatalu wa yusallabu wa tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaaf ayadahaas kale soo deliishanaya meelaha ayuu ka hadlayo dhan ayadahaas kale soo deliishanaya iyo udun yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna la ala nasrihim laqadir ayada noocaas kale soo deliishanaya dabaabadahaas ka kor hadlay marka waa nin aysan qaabna u siin karin in uu India luqad fudud kula hadlo sababta marka uu asagu xoog u saaray in ciidanku sii hormaraan xilligiisii ama intuu hadda joogay waxyaabo badan buu sameeyay horta Mareykanka waxa soo baxday mar inuu Pakistan yeelatay sawaariikh qaarada soo gudba oo waaweyn yeelatay oo hubka nuclear-kana qaadi kara waagi hore Mareykanku marna asagoo inahaas saa ugu tiiqtiiqsada ama saa u sheeg lama arag waxyaabo badantu ka qabay marka waxa weeye dagaalada hadda Shaahin 3 oo maalintii loo tijaabiyeen waa dhaw tijaabiyeen marka Mareykanku waxyaabo ka baqaayo waxa ka mid ah marka ninkan aqoontiisa iyo qaabka uu tarbiyaysan yahay inuu waxa weeye quwad military oo aan la iska caabin karin inuu dhiso sidoo kale toode waxay soo talaysaa inuu teknolojiyadda Turkiga iyo teknolojiyadda Chinese-ka isticmaalay asoo ku dalay tii Pakistan ruuxdooda teknolojiyadda aad bay u fiican yihiin oo waxyaabo badan bay sameeyaan oo sawaariikhda ka mid tahay oo military aad bay u sameeyaan ruuxdooda oo nidaamyo difaac bay ruuxdooda leeyihiin laakiin macnaha waxay aad u adeegsadaan tan dibadana aad bay u isticmaalaan oo khaasatan China Turkiga hadda ku soo biiray oo waxyaabo badan Turkiga taxaaluf istiraatiiji ka dhaxaya ama spice qoto dheer oo istiraatiiji ka dhaxaya marka ninkan waxyaabo badan bedelay intuu hadda meesha joogay wuxuu kor u qaaday ciidanka tayadiisu kor u qaaday tiradiisu kor u qaaday wuxuu heshiisyada qaarkood waxa laga yaabaa inuu dib u farsameeyay ama dib ugu noqday heshiisyada qaarkood مثلا kuwa Mareykanka ka dhaxayo oo kale dib ugu noqday oo wax ka bedelay taas oo u saamaxaysa xataa nimanka siyaasiyiinta wasiirka la yiraahdo wasiirka difaaca mar la wareysanaayay wuxuu sheegay Mareykanka iyo waxay ku eedayaan baa la weydiiyay inaad mataqaana argixisada taageertaan marka sababta maxaa la idinku eedeynaya markaas wuxuu yiri sababtu noogu eedeynay waa anaga markii hore kala shaqeynay Mareykanka in argixisada iyo waxyaabaha la halmaan ka hortagno marka asaga u shaqeynay saadaladeed buu hadda waxa weeyno wax nooga sheegaya oo loo eedeysanayo marka Pakistan ninka hadii la soo koobo Aasim Munir Ahmed Shah hadii la soo koobo noloshiisu waa nolol military iyo diin mataqaana qofkuna labadaas hadii kula soo shakhsiyad adag oo waxa weeye aan si tartiib loo leeyahay aqoontiisa qofku adag tahay oo diintii buu haystaa oo quraankii buu xafsan yahay horta si guud ahaan Mareykanka markii la qaadanayo Pakistan markii la qaadanayo military markii la qaadanayo inta badan quraanka waa lagu imtixaama oo ilaa 15 jis qofku waxa la yiraahdaa inuu yaqaano ama xafisan yahay ay sheegaan Pakistantu laakiin waxa laga yaabaa qof ka sii dhabayo oo quraanka sii wada oo sii xafido oo ninkaas oo kale u sii xafiday inaysan jirin inta badan oo waxa laga yaabaa qofkii markuu military dhex galo oo ciidankii dhex galo oo noloshii ciidanka dhex galo waxa laga yaabaa quraanka inuu ilaawo laakiin ninkan asagu wuxuu kaga duwan yahay dhamaantood wuxuu kaga duwan yahay inuu quraanka sidiis u xafisan yahay sidiis u soo qaadanayo wadaadnimadiisa diintiisa ee dawladda kale ka cabsanayaan oo leeyihiin waxa weyn ninkan waa asagaaba radical ama nin xaq jira asagaaba ah way leeyihiin marka waxyaabo badan ayaa ninkaas uu gaar leeyahay runtii hadda arrimaha gudaha aad u saameyn ugu leeyahay qofka soo military-ga Pakistan qabsana waxyaabo ay Pakistan dadka ka duwan tahay waxa kamid ah ama dalalka ka duwan tahay waxay kamid tahay dalalka ay military-gu ay saameyn fiican ku leeyihiin dabcan dadku way doortaan ra'iisul iyo xisbiyadu way kala doortaan hadda Imran Khan markii la istaayay ama la dooranayay Shahbaz Sharif markii la dooranayay markii Shahbaz Sharif la dooranayay ama Imran Khan la ridayay inkastoo Imran Khan la sheego in lagu riday si aan sharci ahayn laakiin adigu markii dambe doorasho la qabtay oo Shahbaz Sharif ku soo baxeen iyo xisbigiisa ku soo baxeen marka dadku way doortaan laakiin siyaasadda inay fadhido oo aysan kala dhumin oo dalku ma taqaana uusan kala burburin cidda isku hayso dhexda u haysa inta badan waa ciidanka weeye khataraha markii la galo sida madaniga loo galo ama civilianka loo galona waxa
dhexda u qabta oo haya ciidanka haya marka saameyn buu ku leeyahay siyaasadda samaynteeda iyo waxa weeye hogaaminteeda labadaba qofka ciidanka ugu sareeya waa qof powerful Pakistan marka dhexda la joogo asagana uu ka sii xag jiraayo de qofku dadku taqdiirkaas soo gaar buu leeyahay oo qof lagu faanin karo oo Pakistan marar badan baa Pakistan Hindiya dhexdeeda kala kulantay Hindiya darbada kala kulantay laakiin marka waxa adag darbad way fiican u geysay taa ruuxadeeda wax sii siinaysa in saameyntiisa inay sii badato asaga ruuxadeeda sii siinaysa marka saameyn buu ku leeyahay dhamaan gobolka Pakistan iyo inta ka baxsanba ruuxadeeda maadaama uu ciidan badan oo halkaas oo nuclear haysta uu gudoomiye ka yahay waxay sabaysaa ruuxadiisu inuu xataa gobolada kale ku yeelan doono saameyn ku leeyahay sida Afghanistan oo kaleeto ama dawladda dariska la ah Pakistan la shaqaynteeda oo kaleeto waxyaabahaas oo dhan saameyn ku yeelanaya maadaama ciidanka inta la eg oo tirada la eg inkastay dhinac markii la isku dhigayo baa la yiraahdaa India iyo nimanka la yiraahdo Pakistan India wax kasta ku soo laabalaamataa xagga militariga cirka militariga ciidanka cirka ciidanka dhulka ciidanka si guud ku soo laabalaamataa diyaaradaha haysato dabaabaadka haysato ama taangiyada haysato way ku soo laba jibaarmataa laakiin hadeer darbada hadda la qaaday ama hadda sorimaadka hadda ka dhacay waxa ku gacan sareysay Pakistan ku gacan sareysay Hindiya daqiiqado ayay wax ku dhumisay lacag 1 bilyan ku dhow ama ka badan ayay ku dhumisay diyaarado badan oo drones laga soo riday kuwa badan oo mataqaana kuwii caadiga militariga ahaa ayaa laga soo riday waxyaabo badan baa mataqaana ay kaga gacan sareysay marka ninkan anigu hadda waxaan dareemayaa inuu Pakistan dhexdeeda uu ku yeelan doono magac weyn ku sii yeelan doono mustaqbalka haduusan sidii saaxiibkiis Qamar Jaawid hadaysan ka soo dhaxgalin xilliga uu shaqada ka fariisan lahaa shaqada Qamar Jaawid hadda ninkii asaga soo tababaray ama militariga hore ninkii ka ahaa Qamar ninkaas hadda uu ka fariistay shaqada asagoo markuu ka fariistay baa loo magacaabay asaga ruuxadiisa marka haduusan ka fariisan sanadada soo socda waxay u noqon doontaa sanado uu leeyahay mustaqbal ifaayo si leeyahay xagga hogaaminta ciidanka iyo xagga saameynta uu ku yeelanayo siyaasadaha magaca uu hadda sameeyay waxay ku yeelan doontaa saameyn ay ku yeelan doontaa Pakistan dhexdeeda ku yeelan doontaa sababtoo ah hadduu magac sameeyo dadkuna ay jecel yihiin ciidanka awal jeclaayeen hore u jeclaayeen haddana uu guulo soo hayay wuxuu yeelan doonaa saameyn weyn buu ku yeelan doonaa oo ay noqon doonto mustaqbalka soo socda nimanka siyaasiyiinta isaga inay ciseeyaan inay isaga tala weydiiyaan xisbiga soo bixin doona ama xisbiyada ku guuleysan doona haddii mesela doorashooyin la qabto sanadada soo socda oo kaleeto xisbiga oo isagu mataqaana u janjeero militariga dabcan inay hadda toos u fargeliyaan ma ogola laakiin de khalfalka waalis ama behind the scene dadka gadaal inta badan wax ka saameeya bay yihiin marka ciduu u janjeero ayaa markaas soo bixin doonta saan filayo oo saameyn weyn buu ku yeelan doonaa magac fiican buuna ka sameeyay taqriiban hadeer inta uu hadeer dagaalkaas uu socday ama sorimaadkaas uu ka socday meesha marka waxaan dareemayaa inuu ninkaasi aad iyo aad mataqaana ugu khidmeeyay ummadiisa iyo dalkiisa aad baan u mahadsantahay Ustaad Abdulshiid jazakallahu khayr